rasmi reerkay ka timan ku cadaynaya warasmi reerkay ka timan ku cadaynaya reeraha lala xidido reer kii xulka u ahaa maxaad ka ogtaysay maxaad kala socotaa xaaladda rasmiraysa farxaan yar hadda halka ay marayso ama ay isla dhigatay haddaba intaba muuqaalkeena aad kaga bogan doontaa ee ku soo dhawow muuqaalka faahfaahsan balse intaanan muuqaalka u gudagelin halkan waa kanaalka ansixinta wararka haddii aad ku cusub tahay walaal macaan ku soo biiro ka mid noqo kumanaanka kun ee qof ee ku xidhan ee sida joogtada u hela muuqaalada dheeriga ee aanu soo dhigno bartani sidoo kale walaal macaan muuqaalka la garee siina share garow la wadaaga asxaabtaada haddaba ku soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan haddaba arrinta rasmiraysa farxaan yar oo muddooyinka ugu dambeysay social media saameyn togan iyo mid tabanba ku yeelatay isla markaasina noqotay arrin sida musalsalka loo xiiseeyo isla markaasina ay sugaan in ka badan 100,000 kun oo qof oo Soomaaliyeed haddaba arrintani waxay noqotay run ahaantii mid saameyn inagu yeelata oo aynu sugno maalinta ka dambaysa fanaanku xilliga uu soo jawaabaya ama waqtiga ay isku soo jawaabayaan haddaba ugu dambeyntii arrintii waxay ku sabiyeeshatay waa prank oo waa la kala aamusay haddaba wixii muddo la kala aamusnaadaba maadaama lagu jiro bil Ramadaan aysan roonayn in social media muuqaalo aan habboonayn hawada la isu soo mariyo haddaba ugu dambeyntii waxa dhacday in fanaanada rasmiraysa ay afka juuqda ka jarato farxaan yar oo isla markaasina aan dib ugu soo jawaabin haddaba waxay muddo ka aamustaba waxa dhacday in horta ugu horeyntiiba bulshada Soomaaliyeed ayada dhaleecaynta saartay maadaama oo farxaan yar uu soo bandhigay codad sir oo ka hayay rasmirays haddaba waxay bulshada Soomaaliyeed halkaas ka ogaatay in rasmi ay khaldan tahay walow ay qayb kale u haysatay in farxaan yar khaldan yahay haddaba maanta ayaa waxay soo dhigtay barteeda TikTok-ga fanaanada rasmirays iyadoo qodqoditaan ugu talagashay sidoo kale inay mar labaad soo rogaalciso arrinta daawadayaal muuqaal ay daawadayaal iskaga soo duubtay maanta iyada loo sameeyay isla markaasina dareenkeeda ka hadlaysa haddaba farxaan yar waxa uu noqday run ahaantii ama se uu ka mid yahay dadka shakhsiyadaha ugu afka gaaban leh social media inta badan ba aan ka soo hadlin haddii dulmi loo geystay haddii kaleba haddaba farxaan yar sidan wada ogsooneen arrintan waxa uu ka aamusnaa muddo aad u tiro badan balse waxa uu ka gami waayay wiilkan yar ay sheegtay in iyadu ay dhashay isla markaasina ugu dambeyntii noqday prankiga haddaba ugu dambeyntii daawadayaal arrintani waa ay noqotay mid la kala aamuso oo laba dhinac yeelata maadaama bulshada Soomaaliyeed arrintani ay ku khalkhashay waxay noqdeen kuwo iyaguna liidka ka raaco muuqaaladii badnaa iyo sidoo kale falcelintii aadka u tirada badnayd ilaa weyba hal mar oo kaliya haddaba iyaduna waxaa jirta qiso kale oo iyaduna social media hadda saameyn taban iyo mid toganba ku leh oo Safiid Ismay Cabdi Ciise Cajuun u dhaxaysa haddaba warbixintaasi iyaduna halka ay ku dambeysay sidoo kale halka ay marayso muuqaalkan xiga ayaad kaga bogan doontaa ila daawo rasmirays oo muuqaal soo dhigtay barteeda TikTok isla markaasina aad ugu karbaashaysa farxaan yare haddaba walaal macaan inta aanan muuqaalkaasi ku soo gudbin halkan waa kanaalka ansixinta wararka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar sidoo kale walaal macaan muuqaalka rukmo oo gambalaalka yarka afuro sidoo kale walaal macaan muuqaalka la grab bal haddaba ila daawo muuqaalkan ay rasmi soo dhigtay abaar afradii daawadayaal intaas ay muuqaalku nagaga yahay nala sii daawo muuqaalka rasmirays ay ku ganaaxayso saygeedii hore ay nolosha ku kala baxeen waana kan muuqaalkeeda u wanaagsan rasmi reerkay ka timan ku cadaynaya warasmi reerkay ka timan ku cadaynaya reeraha lala xidido reer kii xulka u ahaa oo xuural cayntiina midab keedu yahay xadaaf gacmuhu xaad leeyihiin oo indhuhu xadan duqsiga xaadeeda taab taana xariga yahay oo xinfanin laga baxshiyo geeya lagu xarbiyo xariir laban oo wata xulayadii xulkii gabdhaheenay xaal aniga ku siin iga gidoon rasmirays xaalka macaanto xulkii hablaheenay xaal aniga ku siin xulkii hablaheenay xaal aniga ku siin